مدن قدومي مدن يالي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي أيام هذا ودماني وسقناتي وعن سلامة يا ونما هذا نقيا قدونك كملجار برلمان كا يحل بعنا قلها وكيل هذا اسم ماذا علماء ما تشرفت شعب كبدلان برشة الرئيد كا إذا ماذا أمان كا يورباهين تقريبا هذا كل الدول والدور مهم كل دور الشذا مدن قدومي مدن يالي مروين sidaan wada ogsoonahay baarlamaanka Puntland waxa la hunkay 1989 oo ay maanta ka soo wareegtay ku dhawaad muddo 12 sano muddadaas oo baarlamaanku uu soo maray marxalado kala duwan isla mar ahaantaana shaqo badan la soo qabtay balse wax badan oo loo baahnaa in la qabto laga gaabiyay oo ay dhimayeen mudana gudoomiye mudanayaal waxaan halkan idinkala wadaagayaa qorshaha iyo hanaanka aan rabo inaan ku hogaamiyo golaha wakiilada dawladda Puntland muddada 4 sano ee soo socota haddii aad ii doorataan haddii alla idmo hogaaminta waxaan hogaamintaas ku salayn doonaa dastuurka dawladda Puntland iyo xeer hoosaadka golaha waxaana ii qorshaysan inaan wax badan ka qabto horumarinta baarlamaanka iyo ilaalinta xasaanadda iyo maamuuska mudanayaasha anigoo ku dhaqmaya dastuurka Puntland dhowranayana diinta islaamka iyo shuruucda iyo xeer hoosaadka golaha haddaba anigoo dhowraya dastuurka iyo qawaaniinta u dhisan Puntland waxaan idinka ballan qaadayaa inaan fulin doono barnaamijkayga hoos ku taxan insha Allah kow yagaleelida xarun cusub oo baarlamaanku yeesho laba kor u qaadida aqoon kororsiga baarlamaanka ee xagga qawaaniinta saddex ilaalinta ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka Puntland afar isku xirka golaha iyo hogaaminta aragti cusub shan xoojinta wada shaqaynta matalaadda shacabka iyo golaha lix xeer dejinta iyo dabagalka la xisaabtanka barnaamijyada xukuumadda toddoba daryeelka mudanayaasha iyo dhowradda xasaanadda mudanayaasha sideed dawladda federaalka iyo faragelinta dastuurka Soomaaliya lagu hayo sagaal xiriirka caalamiga kow yagaleelida xarunta cusub ee baarlamaanku yeelan doona mudanayaal marweyn inkastoo uu golo hadda leeyahay xarun uu ku shaqeeyo si fiican loo habeeyay haddana waxaa muuqata in golo uu baahan yahay xarun weyn oo ka ballaaran tan hadda golo ku shaqeeyo waxaan dadaal badan gelin doonaa sidii golo u yeelan lahaa xarun ballaaran oo ku filan hawlaha baaxadda leh si dhammaan gudiyada iyo hawlwadeennadu u helaan xafiisyo iyo agab ay ku shaqeeyaan haddaba mudanayaal haddii aad siisaan codkiina waxa ay qorshaysan haddii alla idmo inaan ka bedelo golaha aqalka oo hadda ku shaqeeyo oo aan keeno qorshe goluhu ku helo aqal ballaaran oo la mid ah kuwa baarlamaanada caalamku ku shaqeeyaan xagga ballaarka iyo hanaankaba waayo xarunta baarlamaanku waxay ku taallaa bartamaha magaalada halkaas oo ah goob aad u mashquul badan oo ay ku badan yihiin dadka iyo gaadiidku sidaa daraadeed kuma habboona shaqada iyo amniga baarlamaanka toona laba kor u qaadida aqoon kororsiga baarlamaanka ee xagga qawaaniinta mudanayaal iyo marweyn si loo helo gole hufan si hufan u guta hawlihiisa dastuuriga waxaa muhiim ah in goluhu helo tababaro iyo aqoon kororsi ku aadan mas'uuliyadiisa waxaan markaas dadaal badan gelin doonaa in goluhu helo tababaro kor loogu qaado aqoonta iyo ogaalkooda kuwaas oo ka dhici doona dalka gudihiisa iyo dabadiisaba mudanayaal si goluhu ula jaan qaado arrimaha qaanuunka ee horyaal waxaan doonayaa oo awoodda saaraya inaan golaha u baadi goobo aqoon kororsi dhinaca sharciyada iyo qaanuunka ah waayo waa mahuraan in xubnuhu helaan ogaal iyo aqoon qaanuun oo ay ku shaqeeyaan kuna gutaan waajibaadkooda dastuuriga mudanayaal sidaad wada ogsoonahay hawlwadeennada goluhu waa motoorka dhaqaajiya hanaan socodka hawlaha golaha haddaba si loo helo hawlwadeenno tayo leh waxaan dadaal badan gelin doonaa kobcinta aqoontooda iyo daryeelkooda si gudiyada goluhu u helaan shaqaale xirfad leh oo gacan ka siiya hawlahooda mudanayaal golahan waa golihii ugu badnaa ee ay soo galaan dhalinyaro aqoon-yahan ah sidaa daraadeed waxaan doonayaa inaan noqonno gole ka duwan golayaashii ka horreeyey waxaana doonayaa in golaha ay ka muuqato xoogga iyo aqoonta uu xambaarsan yahay saddex ilaalinta ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka Puntland mudanayaal ilaalinta ku dhaqanka dastuurka iyo dhowridda diinta islaamku waa waxa ugu horeeya ee aan doonayo inaan golahan ku hogaamiyo aniga oo waliba hortiina ka ballan qaadaya inaan dib u bilaabi doono barnaamijyadii dimuqraadiyadda Puntland ee muddada soo socday afar isku xidhka golaha iyo hogaaminta aragtida cusub mudanayaal
isku xidhka golaha iyo wada shaqaynta goluhu waxay xaqiijinaysaa keenidda aragtiyo cusub sidaa daraaddeed waxaan la imaan doonaa himilooyin hoggaamineed aniga oo kaashanaya aqoonta kartida waayo aragnimadayda iyo weliba waayo aragnimadiinna siyaasadeed iyo tan mudanayaasha golaha haddii aad siisaan codkiina iyana doorataan hoggaanka golaha 5 xoojinta wada shaqaynta matalaadda shacabka iyo golaha mudanayaal iyo marwooyin golaha wakiilada dawladda Puntland waxay wakiil u yihiin shacabka Puntland waxayna wakiil uga yihiin inay shacabku helaan xuquuqdooda dastuuriga adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo inay helaan xasillooni amni mudanayaal iyo marwooyin si aan u gudanno waajibaadkeena dastuuriga waxaan golaha ku hagi doonaa inay si mug leh uga soo baxaan mas'uuliyadaas culus ee shacabka noo soo doortay sidaa daraaddeed maadaama ay mudanayaal muhiim tahay in baarlamaanku wada shaqayn la yeesho shacabku waxa uu leeyahay muhiimad gaar ah haddaba si aan hadafkeenna uga madhalino waxaan hirgelin doonaa isku xidhka gobollada iyo degmooyinka laga soo doortay xildhibaanada waxaana qorshaha aan doonayo inaan ku hoggaamiyo baarlamaanka haddii aad isiisaan codkiina sharafta badan leh haddaba si aan u adkayno oo u dhowrno kalsoonida ay inooga baahan yahay shacabku ina soo doortay waxaan la imaan doonaa siyaasad furfuran oo aan kaga warqabi doono shacabkii ina soo doortay iyadoona weliba aan xoogga saari doono ka warqabka xuquuqda shacabka sugidda amnigooda iyo xuquuqda Puntland iyo xuduudaha Puntland mudanayaal iyo marweyn waxa kale oo aan ahmiyad gaar ah leh dejinta qorshe siyaasadeed oo lagu hago adeegyada bulshada sida wax ka qabadka waxbarashada caafimaadka biyaha nadaafadda agoomaha iyo ilaalinta danyarta iyo dadka abaaru saameeyeen waxaana dadaal gelin doonaa in baarlamaanku xafiisyo ka furto gobollada si loogu dhowaado shacabka xeerdejinta dabagalka iyo la xisaabtanka barnaamijyada xukuumadda ee xeerdejinta mudanayaal iyo marweyn maadaama ay xeerdejintu tahay mas'uuliyadda golaha wakiilada waxaan xoogga saari doonaa in goluhu soo saaro xeerar tayo leh iyo in dib u eegis lagu sameeyo xeerarka hadda jira ee u baahan in dib u eegis lagu sameeyo iyadoo loo marayo sida dastuurku ina farayo arrimahaas oo dhan waxaan ku filin doonaa in goluhu yeesho sharci yaqaano ku xeel dheer xeerarka kuwaas oo golaha ka kaaliya dhinaca xeerdejinta iyo tayeynta hannaanka xeerdejineed waxaana dadaal badan ku bixin doonaa ilaalinna doonaa ku dhaqanka xeerarka goluhu meel mariyo dabagalka iyo la xisaabtanka barnaamijyada xukuumadda mudanayaal iyadoo laga amba qaadayo waajibaadka dastuuriga ee ku cad qodobka 46aad ee dastuurka Puntland iyo wada shaqaynta hay'adaha dawladda waxaan dadaal badan gelin doonaa in golaha wakiilada dawladda Puntland si dhab ah ugu guntado mas'uuliyadda dabagalka la xisaabtanka barnaamijka xukuumadda iyadoo gudiyada goluhu door muhiim ah ka yeelan doonaan isla markaana ay meesha ka maqnaan doonin mas'uuliyad wadareed ku aadan isdhaliilid toosin sixitaan iyo talo ku biirinta siyaasadda iyo barnaamijyada waxqabad ee xukuumadda mudana gudoomiye mudanayaal iyo marweyn si loo helo golo si madax bannaan uga guto waajibaadkiisa dastuuriga waxaa laga maarmaan ah in madanuhu helo gunno iyo daryeel joogta sidaa daraaddeed waxaan ka hawlgeli doonaa in dib eegis lagu sameeyo gunnooyinka hadda jira in la helo kuwa maqan sidoo kalena waxaan ka hawlgeli doonaa in guluhu yeesho miisaaniyad ku filan hawl socodsiinta oo madax bannaan mudana gudoomiye mudanayaal iyo marweyn xildhibaanadu waa wakiilada shacabka Puntland markaasi ay ugu sahlanaato gudashadooda waajibaadkooda dastuuriga waxaan dadaal badan gelin doonaa dhowridda xasaanada mudanayaasha golaha wakiilada iyadoo dhowridda iyo ilaalinta xasaanada xildhibaanada lagu baraarujinayo hay'adaha dawladda ciidamada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan mudanayaal sidaan wada ogsoonahay waxa dhacday marar badan in faragelin lagu sameeyo dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya oo ah hantida ummadda Soomaaliyeed la wada leeyahay waxaan la imaan doonaa kana warhayn doonaa qorshe cad oo looga hortagi doono furfurka iyo wax ka beddelka lagu hayo dastuurka dhexda u aha ummadda Soomaaliyeed sidoo kale haddii aad codkiina ay siisaan waxaan kale oo aan ballan qaadayaa in aan keeno qorshe aan kula xisaabtanno
baarlamaanka federaalka Soomaaliya si aan u helno saami qaybsigeena dhaqaale ee beesha caalamka ugu deeqdo baarlamaanka Soomaaliya iyo saami qaybsiga awoodeed ee hadda ay isku koobeen baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay laga maarmaan noqotana waxaan xoogga saari doonaa in loo wada dhammaado qorshayaasha dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya in golayaasha dawladda Puntland aragti midaysan ka yeeshaan xiriirka caalamiga mudanayaal iyo marweyn waxaan diyaarin doonaa qorshaha hawleedka golaha 4 sano ee soo socota kaas oo aan la wadaagi doono beesha caalamka iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha si ay golaha uga caawiyaan baahiyaha jira sida gaadiidka agabka xafiisyada tababaro iyo dhismaha xarun cusub oo baarlamaanka yeesho gabagabo mudana gudoomiye iyo mudanayaal iyo marweyn waxaan idinka ballan qaadaya ilaahay hortiisa haddii aad ii doorataan gudoomiyaha baarlamaanka in aan idinku hogaamin doono wada tashi isqadarin iyo ilaalinta dastuurka iyo xeeroosaadka golaha mudana gudoomiye mudanayaal iyo marweyn waxaan si sharaf iyo qadarin leh idinka codsanayaa inaad codkiina i siisaan idinka oo mahadsan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh